kusoo dhawaada barnaamijkii horumarinta ardayga xalaqadii labaad. Mowduuca maanta anugu hadlaynaa waxa uu yahay hababka ugu wanaagsan ee wax akhrinta, wax xifdinta. Wax akhrisku waa kobciyaha garaadka, kordhiyaha aqoonta. Sidaas darteed ayaa diinteena Islaamku waxa ay ku bilaabatay iqra', taas oo tusinaysa ahmiyadda ay leedahay wax akhrintu. Haddaba qof kasta oo ardaya waxa uu u baahan yahay inuu wax badan akhriyo si uu wax badan u fahmo, ka bacdina uu ugu guuleysto ahdaafta uu ka leeyahay waxbarashadiisa iyo noloshiisa oo dhan. Dadka wax akhriya inta ugu badan waxa ay u akhriyaan 6 ujeedo inay xaqiijiyaan. Marka aad wax akhrinayso, ujeedada koowaad waxa weeyaan in aad fahamto message kooban oo uu xambaarsan yahay waxan aad akhrinayso. 2, in aad faahfaahin dheeraad ah ka hesho mowduuca aad wax ka akhrinayso. 3, in aad jawaab u hesho su'aal kugu taagnayd. 4, inaad qiimeyn ku samayso waxan aad akhrinayso iyo nuxurka ay xambaarsan yihiin. 5, in aad dhaqan geliso waxyaabahan aad akhrinayso wax ka mid ah oo aad noloshaada wax uga beddesho. 6, si in aad ku raaxaysato ama naftaada aad ku maaweeliso waxyaabahan aad akhrinayso, isla markaasna aad ka hesho nasiino xagga maskaxda ah, sida qisooyinka, sheekooyinka qosol kale marka la akhrinayo kale. Ujeedooyinkaas 6 waa kuwa ugu muhiimsan oo badanaaba wax loo akhriyo. Ma jirtaa ujeedo 7aad oo ka baxsan 6daas oo aad wax u akhriso. Haddaba haddii ay qiraa'adii lagama maarmaan u tahay nolosheena, waxaan isweydiinaynaa sidee ugu wanaagsan ee aan wax u akhri karaa. Qiraa'aadka ama wax akhrintu waa dhowr nooc, waxaana ugu muhiimsan wax akhriska ujeedada leh ama waxa loo yaqaano al-qiraa'a al-haadifa. Marka hore waa in aad xadidaa ujeedada aad ka leedahay qiraa'adaada. 6dii aan soo sheegnay mid ka mid ah maxaad wax u akhrinaysaa? Ma 2, ma 3, ma 1 ayaad wax u akhrinaysaa? Qodobka labaad oo lagaa doonayo marka aad rabto inaad si wanaagsan wax u akhriso, marka aad xadido ujeedada aad ka lahayd qiraa'ada. 2, waxaa lagaa rabaa in aad diyaarsato aaliyaadkii aad wax ku akhri lahayd ama agabkii wax akhrinta, buugaagtii aad akhrin lahayd, qaamuuskii aad isticmaali lahayd. Laanno marka aad wax akhrinayso waxaa laga yaabaa inay kaa hor yimaadaan erayo ama musdalaxaad ama erebixino macnahoodu uu mugdi kaaga jiro. Haddii eragaas ama musdalaxaas macnihiisa aadan fahmin, wixii aad akhrinaysay ma fahmi kartid. Sidaas darteed marka koowaad waxaa lagaa rabaa in aad xadido ujeedada aad wax u akhrinayso. 2, in aad diyaarsato agabkii wax akhriska sida buuggii, dictionary-gii ama qaamuuskii ama mucjamkii qofba sida u yaqaano. 3, waxaa laga doonayaa inaad diyaarsato meel munaasib ku ah wax akhrinta, bii'a munaasiba lilqiraa'a, meel degan oo wax buuqa lahayn oo cid interruption kugu samaynaysa aysan jirin waa inaad diyaarsataa. Sidoo kale waa in aad doorataa waqti munaasiba waa inaad wax akhrisaa. Waa qodobka 4. Waqti aad degan tahay oo jir ahaan iyo maskax ahaanba aad u degan tahay waa in aad wax akhrisaa. 5, waxa aad akhrinayso u qaybi faqraad. Faqro kasta adoon fahmin ha ka gudbin, ha u gudbin faqrada kale ee xigta. 6, marka aad wax akhrinta ka dhammaato, qor pointiska ugu muhiimsan oo aad ka fahamtay wixii aad akhrisay ama uu ka koobnaa shaygii aad akhrisay. Taasina waxay kuu suuro gelinaysaa inaad isku xirto dhammaan faqaraadkii ama passageski aad soo akhrisay, wixii ku jiray oo aad ka akhriso fahamtay inaad hal meel isugu keento ayay kuu suuro gelinaysaa. Waxaan rajaynayaa intaas haddii aad tijaabiso aan soo sheegnay oo aad dhaqan geliso in aad ku guuleysan doonto inaad wax badan akhriso. Mar haddii akhriskii aan ka soo hadalnay qaybihii ugu muhiimsanaa, halkan waxaan ku sheegi doonaa haddana sida ugu wanaagsan ee aad u xifdi karto waxyaabihii aad akhrisay, hadday yihiin duruus iyo waxyaabo kale oo aad akhrinaysay. Si aad u xifdiso waxyaabahaas waxaad u baahan tahay farsamooyin badan oo inta badan dadka khubaradaahi ay tilmaameen. 1, waxaad doorataa meel degan oo jawi degan oo ku habboon wax xifdinta, aysan jirin waxyaabo kale oo maskax ahaan ku mashquulinaya. 2, marka aad wax xifdinayso si sare u akhri waxyaabaha aad doonayso inaad xifdiso, sababtoo ah qofka bini'aadamka waxyaabaha uu respondiga jirka u sameeyo waxa ugu degdegta badani waa waxa ka yimaada bannaanka.
marka stimuliga ama shayga musiirka uu gudaha ka yimaado, jirku si gradual ah ama tartiib tartiib ah ayuu ugu falceliyaa, laakiin markuu shaygu banaanka uga yimaado si degdega ayuu uga falceliyaa. waxaa leeyahay marka aad qiraacada la jaharto ama aad kor u akhriso, waxay ka dhigan tahay stimuli banaanka kaaga imaanaya, isla markaasna jirkaagu uu si degdega uga falcelinayo. 3. Write down the key points of each lesson ama each reading. waxyaabaha aad akhrisay wax kasta oo ka mid a waxaad qortaa key pointska ama waxyaabaha ugu muhiimsan qor, kabacdina point u xifdi. marka hore faqradan oo dhan ma wada xifdi kartid, laakiin faqradan pointiska ugu muhiimsan oo ku jira meel ku qoro sida aan akhrintiiba kusoo sheegnay, kabacdina pointiskaas xifdi. marka aad pointiska xifdiso, waxyaabaha faahfaahinta oo faqrada ku jira fiirfiiriska ayaa kugu filan hadhowdii. 4. marka aad xifdiso oo aad istiraahdo waad xifdisay, qof kale oo saaxiibka ah ku dul akhri ama uga sheekay ama discussion kala samey si aad isu tijaabiso waxan inaad xifdisan tahay, isla markaasna aad awoodo in aad kor ka sheegi karto waxyaabihii aad soo xifdisay. 5. waxaad qaadanaysaa biririf yar oo waqti kooban ah si maskaxdu ay u soo ceshato awoodeedii, isla markaasna ay u nasato. qodobka 6 ee ka mid ah qodobada wax xifdinta ama hababka ugu wanaagsan ee wax loo xifdi karo, waxaad ka fogaataa waxyaabaha la yiraahdo steroidska ama activatorska, waxyaabaha munashidaadka oo qofka active ka dhiga, sida inaad kafeey cabto, shaah cabto, waxyaabo kale aad cabto oo jirka active gareeya. waxyaabahaas oo dhan ka fogow, ma ku fiicna wax xifdinta. 6daas qodob waa 6da dariiqo oo ugu muhiimsan wax xifdinta, qaababka wax xifdinta. waxaa jira marka oo iyaduna muhiim ah inaan sheegno ay tahay, waxaa jira xilliyo ku habboon wax xifdinta. xilliyadaas ayagana ku dadaal in aad xilliyadaas ka dhigato xilliyadii aad wax xifdin lahayd. maxay yihiin xilliyadaasi? kan koowaad waa haafka u dambeeya habeenkii, laakiin shardi waxa ah inaad xilli hore seexatay. haddii aad xilli hore seexan, xilliga dambe habeenkii ma kici kartid. maalan 2da wixii xagga ka xiga, 3da 2da am midnightka habeenkii, xilligaas waa xilliga ugu wanaagsan ee wax la xifdiyo, laakiin yaa awoodi kara waa qofka xilli hore seexday oo hurdo ku filan qaatay. 2 xilliyada ugu wanaagsan oo wax la xifdiyo waxaa ka mid ah afternapping ama xilliga qofku uu qaato hurdada gaaban maalintii duhurkii, waxaa af carabiga lagu yiraahdo qaylula. wax yar oo short sleep qofku markuu qaato kabacda soo fresh ayuu soo kacayaa. xilligaas oo kale hadduu wax akhris u fariisto oo uu doonayo inuu wax xifdiyo, waa xilliyada ugu wanaagsan wax xifdinta. 3 salaada subax markii aad dukato ilaa 7da inta cadceedu ay soo dheeraanayso, waa xilliyada ugu wanaagsan wax xifdinta oo qofka jirkiisa uu relax ku jiro oo degan yahay, ilaa xaloo dhan uu jiifay, jawigiisa waa degan yahay. xilligaas waa xilliyada ugu wanaagsan ee wax la xifdiyo. 4 waxaa la sheegaa iyadana xilliga qorax dhaca ilaa cishaha inta u dhaxaysa, waa xilliyo uu jirku diyaar u yahay in uu calculation ku sameeyo dhammaan daatooyinkii maanta uu soo qabtay. intaas ayaan kusoo koobaynaa xalaqadii 2 ee barnaamijkii horumarinta ardayga. waad ku mahadsantihiin la socodkiina. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.